بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقال أيضا لو نفاه باللعان ومات الولد فادعاه الأب ضرب الحد ولم يثبت النسب ولم يرث الأب. وقال أيضا ninkii مkhaalifka ahaa ama khasmiga wuxuu yihi أبو xaniifa weeyaane low nafaahu waladka hadduu iska anfiyo bilicaani licaan hadduu ku anfiyo oo wamaata alwaladu nin baa naagtiisa yihi waladkaan ii dhashay aniga ma dhalin markaasuu ka licaantamay waladkii waa iska anfiyey waladkii oo manfi ayaa dhintay fadacaahu labu aabbihii baa sheegtay wuxuu hi anaa dhalay ninkii shalay ma dhalin ou yihi oo ka licaantamay iyo hadda maanta yihi anaa dhalay duriba alxadda horta duriba zawju lxadda waxaa la leeyahay licaankaadi waad beenisay qadafkii baa kugu sugnaanay horta xadkii naagta ay kugu laheyd waa lagaa oofinaa koow marka walam yahbut innasabu nasabkii waladkana soo laaban maayo saad isaga anfisay waayo walam yarithu labu waladkii dhintay ood iska anfisayna ma dhexlaysid marka waxaa meeshaa ka muuqda tanaaqud ninkii haddii uu ka laabtay licaankii uu naftiisi beeniyey waxay ahayd horta licaankii naagti usoo noqon mayso furqa abadiye waayo inkastoo abuu xaniifa uu leeyay naagti way soo noqon kartaa koow walam yahbut innasab yaa layaable ninkan waxaa ku ximbaaray inuu naftiisa beeniyo licaankii aan licaantama wax kama jira uu yihi inuu waladkii aabbo u noqday uu saas u sameeyey markaasuu le waladkii kuwa soo noqon maayo hadduu waladkaas dhintay xoolo uu ka dhintayna adigoo aabbo ah mar haddaad iska anfisay soo noqoshadaadii ku dhexli maysid warkaas yuu maray qaala shaafici wuxuu ihi walaa farqa baynahu wax u dhexeeya ma jiro ninka haddii mar layska anfiyo taraka waladan aw lam yatruk abuu xaniif wuxuu leeyahay ninka haddii layska anfiyo oo walad ka tegin waxa waaye khalaas sida hadda aan soo marnay waxaa weeyaan mar hadduu dhinto haddii oo waladka layska anfiyey ama ha dhinta ama yuusan dhimanin bay ahayd midda labaad walaa farqa baynahu taraka waladan aw lam yatruk haddii waladkii iska anfisay oo waladka sii tago iyo hadduu ka tegin waa isku mid imaamu shaafici lianna hada alwalad almanfiya waladkan layska anfiyey idaa maata hadduu dhinto manfiya nasabi nasabkiisa asoo layska anfiyey uma aqara bihi ou soo laabto lam yacud ila nasabi uma noqonayo liannahu waladkii dhintay faaraqa alxayaata bixaalin markuu dhimanayo xaalo buu ku sugnayo manfi ah falaa yantaqilu canhaa ka soo laaban maayo fakadalika ibnu lmanfiyina waa la mid fii macna almanfiy buu la mid yahay wahuwa laa yakuunu ibla nafsi uu noqon maayo abuu xaniifa wuxuu qabaa haddii nin layska anfiyo oo hadduu dhinto iyo hadduu nool yahayba soo noqon maayo nasabkiisa kow laakiin ninkaa layska anfiyey hadduu walad ka tago ninkaa layska anfiyey na waa soo noqonaa waladkiisana waa soo noqonaa labadaba waa shay gariib jiddan ah imaamu shaafici wuxuu leeyahay haddii ninkan la anfiyo waladkan la yidhaha aniga ma dhalin wuxuu dhalayna waa ka anfisan yihiin oo fakadalika ibnu lmanfiyi fii macna lmanfiyi waladkan oo walad ilmanfi ou dhalay aabbihiisa uu la xugum yahay buu leeyahay wahwa walad lmanfiyi laa yakuuna iblan binafsihi noqon maayo fakayfa yakuunu ibnahu soo u noqonaa bilwaladi uu ugu noqonaa almanfiyi aladii qad inqataca nasabu lxayi minhu
wuxuu leeyahay haddii waladkii ood iska anfiyey zawjkii licaan ku anfiyey oo walad uu noqon waayo waladka uu sii dhaliso walad uu noqona lianna waa sadidii udhexaysaaba la anfiba abuu xaniif wuxuu leeyahy waladkii la anfiyey hadduu walad ka tago waladkan dambe aabba waxa uu noqonaa awowgii la cayntamay marka shaafici taas waa diidan yahay wa huwa sawaab ayib fakayfa yakuunu walad اlwalad ibnahu sow ku noqon karaa bilwaladi اlmanfiyi aladi inqaطaca nasabu اlxayi minhu ninkii asagoo nool nasabkiisi go-ay waladkuu sii dhaliso walad uu noqon karaa waladii yanqaطicu bihi nasabu اlxayi waladka noolay hadduu nasabkiisa kaa go-o yanqaطicu bihi nasabu اlmayitina waa ku go-a lianna xukmahumaa waaxidu macnaha labadan isdhashay waa isku xugum walad baynaa kuu dhashay waad ka licaantantay waa lagaa nafiyey waladkaas nafyigu kaa yahay waladka u dhalayna waa la mid labadoodu waa isla raacayaan uu leeyahy imaamu abuu xaniif wuxuu leeyahy waladkaa layska anfiyey nasabkiisa waa yantafi ilaa idaa kaana lahu walad hadduu walad kale leeyahay waladkaas dambe uu leeyahay wuxuu ka dhigaa inuu walad u noqdo awowgiisi markaase wuxuu leeyahy kii ka horeeyey hadduu walad u noqon waayo kow sii dhaliso walad uu noqon karaa waa waxyaab le runtii waxa waaya masaa'il iska caqli ah walow qutila waqtusima diyatuhu ثuma aqara bihi laxiqahu وأخذ حصته من ديته وماله لأن أصل أمره أن نسبه ثابت وإنما هو منفي ما كان أبوه ملاعنا مقيما على نفيه midaan waa la fahmi karaa walow qutila haddii la dilo waladkii layska anfiyey waqtusima diyatuhu diyadiisana la qeybsado uma aqara bihi aabbihiis ou qiro waladaa laga licaantamay wuxuu uri waladkaan ani ma dhalin buu ku licaantay waa iska anfi kadib uu ka noqday aqara bihi anaa dhalay buu yidhi markuu anaa dhalay uu yidhi laxiqa horta nasabkiisu waa u soo noqonaa wa akhada xisatahu min diyatihi wa maalihi wiilkuu shalay ka dhaartay oo dhintay maalkiisoo la qeybsanaa aabbanimuu qeyb ku leeyahay kow lianna asla amrihi waxa weeyaan ana nasabahu nasaba alwaladi almayit haabitun wa inamaa huwa manfiyun bou ahaanayaa maa kaana abuuhu mulaacinan aabbihiis iska licaanay mooye markii hore aabbow lahay wayabqى manfiyan maadaama abuuhu mulaacinan muqiima calىa nafyihi wuxuu aabba la-aan ahaanaa ninkii ka licaantamay intuu licaankiisu ku taagan yahay laakiin ninkii shalay yiriyey ka licaantamay waladkan ma dhalin ninkii yihi hadduu ka soo laabto rajaca min licaanihi ilى اliqraari biannahu waladuhu yalxaqu bihi aabbihiina xadkii baa lagu oofinaya oo licaankii asaa beeniyey laakiin zawjadii soo noqon mayso calaa madhabi الshaafici qaala اlmusani wamiثlu qowli الshaaficiyi ana اlwalada manfiyu maadaama alwaalidu muqiima calىa nafyihi xadiiثu maaciz bni maalik baa u asalhood miثlu qowli shaafici waxaa lamide ou yihi ana alwalada manfiyun bou ka ahaanayaa maadaama alwaalidu muqiima calىa nafyihi ou yihi waxaa uu asal oo maal u ah oo xadiiثu maaciz bni malik anahu aqara bizinaa ninkii maalik lalahaa oo maaciz ibni maalik lalahaa nebiga hortiisuu zina ka qiray faamara الnabiyu salى اllahu alيه wasalam birajmihi faأkhbira الnabiyu salى اllahu alيه wasalam anahu haraba faqaala الnabiyu sal اllahu alيه wasalam halaa taraktumuuhu markuu rajmiga aada ku bilowdeen u cararay cararitaankaas maxaa isaga hari wayseen liannahu inuu xadka ka cararay macnaheeda ka noqosho waaye ay ka mid tahay waa noqosho ficil ah
ay lacalahu kaana yarjicu fayazuulu canhu rajmu markuu cararay ala dhiila war maxaa ku cararsii war ma zinaysanin inuu yidhaahdo liannu maadaama zinadii ay iqraar ku sugnaato waa laga noqon kara laakiin shuhuud hadday ku sugnaatay lagama noqon kara inay shuhuud isbeeniyaan mooye lianna alxadda calayhi xad baa ku waajibtay maacis maadaama muqiiman calaa dalika calaa iqraarihi bizina hadduu ka laaban lahay waa laga joogsan lahay waxaa kale wa miluhu waxaa la mid almurtadu ninka murtadka ee xaraamu dami qabla irtidaadihi ninkii islaamka ka baxay intuusan ka bixin macsuumu dami buu ahay kow faxalla damuhu damkiisaa xalaal noqday in la daadiy maadaama muqiiman calaa irtidaadihi gaalnimadii intuu ku baaqi yahay faidaa rajaca ila alislaami zaala canhu xukmu alqatli baa ka zuulayo wa rajaca ilaa taxriimi dami ninkii murtadka haddii lagu bilaabo dilid ou yidha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxameda rasuul diintaydan kusoo laabto waa laga joogsanaa marka alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman yuu ka wadaa kadalika alwaladu haabitu nasab waladkii laga licaantamay asalkiisii hore marka hore nasabkiisa waa sugnaay yunfaa canhu nasabkaas waa la anfiye bilicaani fayakuunu manfiyan nasab la-aan buu ahaanayaa maadaama arajulu aabbihii muqiiman calaa nafyi uu ku baaqi yahay faidaa rajaca hadduu nafyiga ka noqdo facalayhi alxaddu baa ku waajibayo waannasabu raajicun ila hubuuti waladkiina aabbihiisuu yeeshanaa kamaa kaana haabitan qabla alnafyi wallicaani markii horeba asaa aabba u ahay licaankaana lagu nafiyey hadduu licaankii uu ka laabtay waladnimadina waa u laabanaysaa qaala almusaniyu haadaani alxadiiثaani sunnataani calaa qowli الshaaficiyi yani sunnataani jid la maro waa macnaha ma aha sunnadii la yaqiini ma aha qaala الshaaficiyu walow qaala limra'atihi yaa zaaniya faqaalat zanaytu bika waطalabaa jamiica maa lahumaa sa'alnaahumaa fain qaalat canaytu anahu asaabanii wahuwa zawju xallaftu aw xalafat walaa shaya calayha wayaltacinu aw yuxaddu warcad waaytan walow qaal limra'ati yaa zaaniya buu yidhi marka qadaf waayo markaasuu faqaalat waxay tihi zanaytu bika haddaan aniga zinaystay adaa iga zinaystay bay tihi waطalabaa labadoodii waxay dalbeen jamiican maa lahumaa naagti waxay tihi ninkan waa i qadfay xadkaa layga oofiyo asigana wuxuu uri waa i qadaftay buu yihi sa'alnaaha naagti waxaan weydiinaynaa markay tihi zanaytu bika adaan kaa zinaystay faqaalat waxay tihi canaytu lahu anahu asaabanii wahuwa zawji zanaytu bika markan lahay waxaan u jeedaa maadaama aada zaaniye i yidhi haddaanba aan qof ka zinaystay adaan kaa zinaysto zawjkayga macnaha adaa ii galmooday marka zinada aan u jeedo galmooshadaadaan u jeedaa galmooshadaadana zina ma aha saas markay iyada tiraahdo xalaftu waan dhaarinaa walaa shay calayha wax kaloo ayada laga rabo ma leh wayaltacinu asiga ama waa licaantama aw yuxaddu liannahu asig marka hore yaa zaaniya naagta yidhi tiisa tafsiir ma laha qadaf le waa qadafkii inuu sidiisa lagu faliyo laxad la saaro iyo inuu ka licaantamo labadaasuu leeyahay wain qaalat zanaytu bika qabla yankixunii qabla an yankixanii waa luqatu shaafici haddii uu yidhaahdo wain qaalat zanaytu bihi waan ka zinaystay qabla yankixunii markii uu yihi yaa zaaniya faqaal zanaytu bika markii la weydiiyaa waxay tihi intuusan i guursanu iga zinaystay ayib markaasuu yihi fahiya qaadifatu lahu taas qadafay noqonay liannahu qabla zawj intayna zawjo u noqonin wixii dhacay waa zino licaanna iskuma laha markaas ile laba zawj iskuma ahayn wa calayha alxaddu walaa shaya calayhi liannahu iyadi waaba u qiratayba asiga markuu zaaniye yidhi ayadii waxay tihi waa kaa zinaystay oo qabla nikaaxay ahayd wuxuu ku qadafkiisii ayadii waa qirtay ayadaa marka arrinta ay saaran tahay
لأنه ليس بقذف إذا لم ترد به قذفا لا لأنها مقرة له بالزنا waxay tiri yaa zaaniya markii uu yiri ay tiri waxaan iska zinaysanay intaanan isguursanin warkiisii waa rumaysa asiga wax lagama rabo طيب ولو كانت قالت له هذي أتراده بل أنت أزنى مني أدائك الزنا بدن فلا شيء عليها إذا وحل وليه مجرته لأنه ليس بقذف إذا لم ترد به قذفا قذف دين أرجيد أنت أزنى مني زنا كن نقول مايو وعليه الحد أو اللعان نكر لكن ولا قرباه أسيق وحوري يا زانية يويري مركاسي بل أنت أزنى مني يا زانية وقذف تفسير كلام له لكن أنت أزنى مني لبا احتمال كرتا إني ترى هذا أنيقا وحكرو إيقال موضي ما جرتي هدا أنيقا إنت إيقال موت الزانية كن نقضي أديقنا أدائي الزنا بدنو لأنك الفاعل وأنا المفعول marka nikaaxan isku qabna haday zina noqoto adayga zina badan bay tiri saasaan ula jeeday waxba lagu malaha ida markaas hadaad ba isu galmooshadeeni anagoo isku qabna aad zaaniye igu tiri adayga zina badan ay u jeeda laanu labadeen waa sameeyay adigaana xadka iska loo lianaka talib wa ana almatlub warkaas marka لكن هداي ترى هذا أنت أزنى مني أي ترى قذفا أولجد لبدين ووذ الزنا سنة لكن أسائق الزنا بدنا يدي أوجدوا لوضع قذف واحد طيب ولو قال لها أنت أزنى من فلانة أو أزنى الناس هدورا لم يكن هذا قذفا إلا أن يريد به قذفا نالتي سوء حكوري أنت أزنى من فلانة فلانة ناقت ليلة وكزنا بدن تاعي أما ضد كاد وزنا بدن تاعي لم يكن هذا قذفا إلا أن يريد به قذفا إنه أرجيد معي لأنه أنت أزنى من فلانة هدو هذا فلانة أن الله من ما بزني سنين بقى مركب فلانة هدينا الزني سنين هي ليست لأنه حوى اسم التفضيل وحكم ما كان شيئان يشتركان في أصل الصفة mid liiri waa ka zina badanta haday bazinaysan tan oo liiri waa ka badanta in iimaan karto azna an-naasina dadka ala salaam min az-zina wa laakin haduu yiraahdo maya anigu waxaan ula jeeday qadaf oo macnaa fulaana ma baahna naag zina badanaan ula jeeday haduu yiraahdo yuqadu bi kalaamihi wa yutabaqu alayhi طيب ولو قال لامرأته زنيت وأنت صغيرة أو قال وأنت نصرانية أو أما وقد كانت نصرانية أو أمة أو قال مستكرهة أو قال زنى بك صبي لا يجامع مثله لم يكن عليه حد ويعزر للأذى إلا أن يلتعن ولو قال لامرأته ناكتو هدق بوحوكيري زنيتي وأنت صغير أضو يريرو ميلها عياري جرتا لقا زني سجري أو يري أو قال وحوري وأنت نصرانية أو أما مركز قال ذا كريستان كأهيد لقا زني سجري أما أذيقو أما أبوري أضون وحان اللي أقيا وقد كانت نصرانية أو أما وصومرت هدي أو يرادو زنيتي وأنت نصرانية وقف كان الإسلام لقول له نصرانية صومر من قذف هو لكن قف له مرحلة صومرتي ناق نصراني نكيرا زانية حد قذفكم اللازمة لأنه زانية ذا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات قال قرب قف مؤمنات قف أو قذفي مركب قف يرلا قذفه هي النصرانية أو قال مستكرهة زنيتي وأنت مستكرهة ولو كفصدي بوري أو قال زنا بك صبينا كازن لا يجامع مثله ولد يربى سودي بتوشن جرأة من لحجرت وضو جرأة لم يكن عليه حد لأنه وحو شيء عاركم اللازميس لكن يعزر للأذى dhibka uu qofkan laano qofkan markay way ka xanuunsanay markaad yareed intaad aqli yeeshanin baa lagu fuuli jiray yaani nin ogal ma jiro
laakiin ayada xad looma qabsan karo sidii ayadu hadday zinaysatay xad loogu oogeynin yaa low qudifa biha wahiya sagiira laa xadda calaa qaadifiha ilaa an yaltacina tacsiirkii inuu ka licaantamo mooye tacsiirkii hadduu raba inuu iska reebo licaanuu ka galaa laakiin licaanka waxaa way liannahaa zawjatuhu xaaliyatan walow qaala zanayti qabla an atasawajaki xudda walaa licaana liannii anduru ilaa yowma takalama bihi wa yowma yuqicuhu walow qaala ninkii hadduu yihaa zawjki lizawjatihi zanayti qabla an atasawajuki intaanan ku guursanaad zinaysatay xudda liajli اlqadfi walaa licaana liannahu markuu qadfay zawj uma ahayn markuu qadafka ku tuuraa waa maraysan guursanin liannii anduru waan fiirinaa umuurta ilaa yowma takalama bihi qadafka markuu ku hadlay wa yowma yuuqicuhu maalinkou ridayaan fiirinaa buuri maalinka uu qadfayey naag uma ahayn xaaskiisa ma ahayn maalinka uu qadafka riday zawj waaye laakiin qadafka uu ku qadfaa qabla zawj xad baa lagu leey licaan ma laha liannaha lam takun zawjata lahu fi dalika alwaqti wa inama allicaanu khaasu bizawjayni walow qadafahaa uma tazawajahaa uma qadafahaa falaacanahaa waطalabtu bixaddi اlqadfi qabla nikaaxi xudda lahaa walow lam yaltacin xataa xaddahu اlimaamu biاlqadfi awali uma طalabtu biاlqadfi bacda nikaaxi laacana aw xudda walow qadafahaa hadduu qadfo yaa zaaniya uma tazawajahaa iyadoo naagtiisa aan ahaynuu qadfay kadib uu guursaday markuu guursaday naag u noqotay kadib uma qadafahaa falaacanahaa qadafkan labaaduu ka licaantamay zawjay u tahay markaan labaad wa طalabatu bixaddi اlqadfi qabla الnikaax qadafkii nikaaxa ka horeeyey xadkiisay dalbatay xudda lahaa 80 ninka lagu dhufanaa liannahu markii zawju ku eed waa ku licaantatay laakiin qadfigii qabla zawaaji waa qadaf walow lam yaltacin xataa xaddahu اlimaamu haddii uusan licaantamin xataa xaddahu اlimaamu bilqadfi اlawali waxaa la yihi laba qadafaa lagu leeyahay midna qadafna wuxuu ahay bacda zawaaj waad ka licaantami kartaa waa diiday waa la xaday markuu dhacay kadib uma طalabathu bilqadfi bacda الnikaaxi qadafkii bacda الnikaaxi laacana aw xudda walow طalabathu bihimaa macan xudda biاlأwali waxay tiri ninkan qadafkii waxaan ka rabaa qabla الnikaaxi wa bacdahu labadiba marka waxaa la yihi xudda biاlأwali midka hore horta waaba xad liannahu maba guursanin zawja naag ajnabiya u qadfay xad baa laga rabaa waa dhammaatay kaa khiyaarka ma furno waa garanay xudda biاlأwali midkii qadafkii labaad wa curida calayhi اlicaanu biاlaakhiri licaankii labaad oo markii aada guursatay kadib aada maya qadafkii labaad oo markaad guursatay kadib aada qadaftaa lagu leeyahay ka licaantan fain abaa xudda ayضا liأnna xukmahu qaadifan gayra zawjihi alxaddu wa xukmuhu qaadifan zawjahu alxaddu aw اlicaan wuxuu ri fain abaa xudda ayضا liأnna xukmahu qaadifan gayra zawjihi alxaddu yacni qadafkii oo nikaaxa ka horeeyey ayadoon zawjo u ahayn ou qadfay alxaddu kaas khiyaarka ma furno naag ajnabiyadood qadaftay xad bay leedahay licaan ma laha koow markaasuu iri wa xukmuhu qaadifan zawjahu xukumka uu leeyahay markuu ayadoo zawjo u qadfayne alxaddu aw licaan waay qadafkii labaad oo ayadoo zawjo u qadfay
imaa inuu xadkii ogolaada ima inuu ka licaantamo liannaha zawja waay. wa qaala bacdu الnaasi laa xadda walaa licaana faabطla الxukmayni jamiica wa kaanat xujatuhu an qaala astaqbixu an ulaacina baynahumaa ثuma axudahaa. wuxuu iri waqaala bacdu الnaasi laa xadda walaa licaana. abu xaniifa wuxuu qabaa la waa soo booday. walow qaala lahaa yaa zaaniya uu yihi faqaalat bal anta zaanin, waa sida hadda loo badan yahay. sharmuudaa tahay sharmuuda yahow ay ayadana tiri. laacanahaa waxuddat lahu. ayb laacanahaa waxuddat lahu, ninkii oo yaa zaaniye yiri waxaa leeyahy ama xaddi ogolow ama qadaf ogolow, xadkii ogolow ama qadafkii ka licaantan. hadduu ka licaantamo yajibu alxaddu calayha, fain laacanat saqata alxaddu wain lam tulaacin wajaba calayha alxaddu. waa iska toosan yahay kaas. wa qaala bacdu الnaasi abu xaniifa laa xadda walaa licaana faabطla الxukmayni jamiica wa kaanat xujatuhu an qaala astaqbixu waxaa ila xun an ulaacina baynahumaa inan licaankii labadoodii aan dhex mariyo ثuma axudahaa ayada aan xadeey. taasaaba laysku haystaa. mar haddii licaankii uu dhex maro wuxuu leeyahay asiga hadduu licaantamo inan ayada xada waa ila qaabdaran tahay. يعني هذا يمكن أن يعني يتصور أن يلاعن الزوج وهي تنتفي أن لا تلاعن. waa diiday marka in ayada xadee waa diida macnahu madhabka saas maaha. markaasuu shaafici yiri wamaa qabaxa minhu wixii asiga uu xumeeyey faaqbaxu minhu waxaa kasii xum tacdiilu xukmi illaahi calayhimaa, labadii xugumay isku lahaayeen inaad wada burisid aa ka xumboori. wax inuu hagaajiyo isu haystaaye wax uma hagaagsano, saasay ka dhigan tahay. ayb midda hadda abu xaniifa uu yiriyey astaqbixu an ulaacina baynahumaa ثuma axudaha, madhab macruuf ma aha. abu xaniif wuxuu qabaa ninka hadduu licaantamo naagta licaan aa la leeyahay, hadday diido waa la xabisa. hadday licaantanta xaddi waa marka wax xadka ayada ku gaar ahaana garanayn. qaala shaafici walow qadafaa waajnabiyata bikalimaةi waaxida laacana waxudda liljnabiyati. naagtiisi iyo naag ajnabiyo isla fadhiso yuu yiri antumaa zaaniyataani uu yiri, waa hal kelima mase uma jeed, waa jumlo keligeed. marka naagtiisa waa ka licaantami karaa, tan ajnabiyada laakiin qadaf waayo. hadduuse 4 shuhuud keeni waayo waa la xadaa. haddii naagtiisa uu ka licaantimi waayana xad kalaa la saara 2 ah. ayb walow qadafa 4 niswat lahu bikalimaةi waaxida antuna zaaniyaat uu yihi laacana can kuli waaxidatin. mid kastaba xaday ku leedahay. 4 naaguu qabo yiri kulligiin waa zaaniyaat, kuna zaaniyaat buu yihi. marka 4 qadaf waayo. 4tii qadaf inuu ogolaado xad 4 xad la marsiyo iyo inuu 4tooda midba mid u licaantamo. midaan waa licaan uu la galaa, tan licaan siduu 4tii xad isaga baabiye 4 licaan uu galaya. wain tashaaxaxna hadday ku murmaan ayatuhuna tabda-u aqraca baynahuna. 4tii naaga waxay leeyihiin aniga kayga ha la hormariyo iyo kayga ha la hormariyo. ninka xaakimka ah waa u qori tuura. wa ayatuhuna bada alimaamu biha, haddii qurco iska dhaafo imaamka midkii uu iska bilaabane rajowtu an laa ya'hama liannahu laa yumkinuhu u suurogeli maayo xadkii licaankii inuu socodsiiyo ilaa waaxida. haddii loo qori tuurin
أو إمامك مد إسكب الله مدان كاللعانتا أو يرادو وحن رجينا إنه سندن باب لأنه إمامك أفرتودو ما كل مكر وأنه مد إنه كب الله مركو مده كب الله وأنسحي شريطة ألا يهمل واحدة منهن مد كستبوا وإن حق أيها شاء. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.